السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهيجا وانا السلامي وانا بقى ولاشين ليل لايف ستايل ما أنت محاربة إنان كهذلو ما أنت الرياكشن بقى محاربة أما إنان وحي أنا نجو فيلين كي كدريمية محاربة إنان كبحيو فيديو دعدا حنون بدن أو كدعدي مقالة الصومالية ودنك الصومالية دعداس أو قبر الصوماليات أو لقف صدي يدو حاملة هدنا للدلي إلهي هو نحرستو جنفردوس الله كورابيو aad baan u xanuunsanayaa because gabar baan dhalay gabar baan ahay gabarna way la dhalatay ilaahayna rag Soomaaliya xaq ah tuso meel ay joogaan insha Allah marka ila socdo walaalahayga hadda fiidiyogan eegayna insha Allah Allahu akbar waxay ahayd dhacdo xanuunkeeda wadata oo ugub ku ah degmada Cabudwaaq kiiska kufsiga iyo dilka leh ee maanta hadal hayntiisu ay sida weyn u saameysay dadweynaha ku nool degmada Cabudwaaq waa Allaha u naxariistay marxuumad Ubax Maxamed Yaxye oo ahayd 17 jir marwa ah waxaana ay isu diyaarinaysay dhismaha aqalgalkeeda sida uu ii sheegay saygeeda waxaa loo mudeysnaa in farxadda dhismaha walaalayaal 17 jir ay ahayd uurayay lahayd aroos bintinay gasho farxad bay sugasay iyadoo gabar yar ah oo rabtay inay reer dhaqato mid uu ilaahay ifka ka qabtay ayaan dhihi karaa baa loo soo diray oo ifka ka kaxeeyay intuu xanuun badan dhadhan siiyay arooskooda uu dhaco bilowga sanadka soo socda waxaana la sheegay in ay lahayd uur 3 bilooda qoyska ay ka baxday marxuumad Ubax oo aan tagnay ayaa waxa uu ku yaalaa daafta waqooyi ee degmada waxaana ka jiray dareen murugo leh annagoo la qaybsanayna xanuunka ayaa waxaan la kulannay hooyo Xaliimo Axmed ودريمي كرتان هويداسي حنونك اي دريميسو هوي حليمة إلهي هو نحرستو قبردادي او تدبي تبنجرة او اورلي او اروسكي لسي ميد كيدي صاهر شي محاكا دريمي كرتا حنونكاس انا واندالين بان دريمينا because دمر باتاي قفكونا هدو دمر يهي قبر والبو الصومالية حنونك هيدا دميسو قبر كستوي دريمي كرتا مركا حنونكا ترادا بدنا وحادا دانسيي وويل الصوماليات marka ila socdo walaalahayga Ahmed Khaliif waa marxuumadda hooyadeed waxaana ay noo sheegtay in gelinkii dambe ee shalay xaaba ay dab ku shitaan ay ugu dirtay baadiyaha aysan ka soo nabad noqon hooyo Xaliimo iyo qaar ka mid ah ehelada oo soo helay meydka marxuumadda subaxnimadii hore ee saaka kadib markii ay raad goob ku sameeyeen waxa ay nageysay goobtii uu falku ka dhacay ayna ka soo heshay meydka gabadheeda waxaan nimid halkii ugu dambeysay nolosha hadda hooyada waxay tagtay meeshii subaxdii markay habeenkii gabadhii weyday bay waxay doontay meeshii gabadheeda xaabada uga dirsatay xaabada waan doonay jirnay runtii especially aniga waa dooni jiray xaabo laakiin aniga markaan xaabada dooni jiray ragga Soomaaliya waxay haayeen rag wadanaya gabdhahana ku dhaarta naftoodana u hura especially aniga raggan garanayo ragii hore ahaa raggan gabdhaha naftooda u hura ay haayeen wiilashaas oo naftooda gabar wiil Soomaaliyeed meelay joogto gabar laguma dili jirin wuxuu isagu u geystan iska dhaaf maantana waxa soo baxay rag gabdhaha Soomaaliyeed xanuunkooda ama oohintooda ku raaxaysanaya markasta ay tinki markay gabadhu ooydaba wuu qoslayaa miyaa ma dhooshuu ku qoslayaa waxaan u malaynayaa inuu san dareemaynin xanuunkay dareemayso war axsan muu intuu kufsaday hadduu shaydaan ka adeegay iyo balaayo naftiisa ka timi muu isaga tago bal ila socdo walaalahayga murug waaye halkii ugu dambeysay nolosha Ubax Maxamed Yaxye Ubax waxa halkan yaala dharkii uu ka bixiyay meesha yaala markii hooyada ay ka soo tagtay sida hadda hooyada ii sheegtay halkan waxa yaala waa go'eedii ay wanayd waaye xaabadii ay guraysay ayaa intaan oo dhan daasan halkan waxaa saaran waa taakadii timaha madaxa ugu jiray labadii kabood oo ay wadatay bartii yaalaan waxaa kaloo halkan yaala sida ay idin muuqatay juwaankii ay ku soo xaabadoonatay iyo surwaalkeedii dhibaatada surwaalkeedii ka bixiyay buu geedka saaray balaaya ka gashay balaaya ka goysay ilmada manaha dhalin gabarda mana inaadan ka oohin allaha ku kaso hooya dhashay wiilka wiilalna waan dhalay wayna nala dhasheen waa dareemi karnaa hooyada wiilkeedii maanta hadii la dhaho waa la dilayaa xanuun bay dareemaysaa because amba hooyana ay xanuun baan dareemayaa laakiin waxaan leeyahay allaha soo hadeeyo laakiin inuu ka dambayn waayo because laba qof buu bedelayba
waxay muujinaysaa caddeyntan halkan inaysan gabadhu naf kala tegin ayay muujinaysaa sidoo kale waxaa yaalla meeshaan dhiiggeedii iyo dhacaankeedii ayaa yaalla hooyo xaliimo axmed khaliif oo murugaysan ayaa nooga warbixisay iyadoo dul taagan goobtii gabadheeda lagu dilay dareenka gabadha geeri iyo nolol midaad helaysaa baan lahaa haye hadda geerideedii baanan hel yaa ku helay socdaalkeeda halkan sodogeeda ahaa sodogii wiilka qaba aabaheed baa kula socday markii aad halkan timid see dareenkaagu noqday waxba xoogaa baan si noqday laakiin hadda waa hooyo gabadheedii la dilay oo gabadheediio mayda u timi oo iyadoo meel taalla u timi oo wuxuu leeyahay see dareenkaagu noqday ma hooyaa la weydiin karaa dareenkeeda suu noqday ilmahaagiiyo si xun loo dilay intaa u timi oo meel yaalla dareenka maba qiyaasi karto saan aniga aaminsanahay ma qiyaasi karto ay dareenkeeda qof qiyaasi karaana ma jiro ilaahay unbaa qiyaasi karaan u malaynayaa hadday markii haddaaban xanuun badan halkaan buu gabadh marka hore midhaa qof ku qabsaday kabacdin warta halkaa tagtay rafashay ku tagtay markaa madaxa kula jirta nagaadgeedkaasi u dhegani maxamed xuseen guuleed oo ahaa aabbaha dhalay wiilka qabay gabadhan dhimatay ee marxuumadda ah kuna jiray diyaarinta arooskeeda oo loo mudaysnaa bilowga sanadka soo socda ayaa isna waxa uu nagula hadlay goobta lagu aasay kadib wayna bereysnayd waa gabadhaas wuuna kufsaday gabadhaas sodogeed baana bal hadduu kufsaday muxuu u bireeyey markaanan ilaahay ragga soomaaliyeed raggani maaha ragga soomaaliyeed waa rag kale oo ragga soomaaliyeed bedelay markaanan ilaahay wakaast anugu mar hore baa waxaan idhi markii la kufsaday Caaisha yar beebi bay ahayd jannada insha Allah ku dhex dabaalanaysaa baa gabdhaha meelaha marmaraya waxaa la dhahay wiilal baa kufsaday saana la yeelay war aniga haddii dadka la oran lahaa hadday gabdhaha Soomaaliyeed ama ragga Soomaaliyeed dhihi lahaayeen war gabar dambe seeba inay xanuun dhadhamiso oo nin Soomaaliyeed oo waliba aan gabdhuhu dhalay inuusan gaarsiin see loo joojiyaa waxa loo joojin karaan aaminsanahay aniga anaa inii sheegi doono insha Allah ragga Soomaaliyeedna waan ogahay qayb bay soo ataagaysa laakiin iska kay soo ataaga ila daawada walaalahay aad iyo aad baan isku bedelay shucuurtayda hadda saacadan waa kacsantay ardayda amnigayga hadalkayga midna masaxsan tagay meydkeeda ayadaan isku duway meydkeeda maryadan cushay waan isku duway waxaan raadiyey oo isku taxallujiyey ninkii inaan baadi goobo raadkiisa meesha yimid waan dabagalay waxaan ugu tagay guriguu galay wallaahi waa aabe fiican wakaas isagoo waa aabe Soomaaliyeed gabadhiisii waa la dilay laakiin muxuu sameeyay sodcaal wuxuu sameeyay sodcaal buu sameeyay raadkii wiilkii gabadha kufsaday amaba cunayba buu raadkiisii raacay suu u daba socday meeshuu galay buu galay guriga hooyadiisu galay hooyada war annaga hooyooyin haddaan nahay meel kasta waa ku dhibanahay xanuun leena la dareensiina tamaanta wiilka dhashay oo laga dilana xanuunaan la dareemaynaa ta gabadha dhashayna xanuunaan la dareemaynaa ilaahu haddaan hooyanahay noo gargaar yaa rabbi wiil Soomaaliyeed ana xanuunka koos garaynaya bal ila socda cabudwaaq dhamme farxaan xuseen xasan ayaa soo bandhigay eedaysanihii ka dambeeyay dilka iyo kufsiga gabadha marxuumadda ah oo ay laamaha ammaanku maanta soo qabteen inuu si u xamoodaaba inuu si ugu cabsan yahay miyaa maaqan ilmo yar buu eegay gabar xaabad doonatay oo banaanka magaalada uga baxday muddo ilaa saaka aan ku daba joognay oo raadkiisa aan qaadnay oo go'isii iyo kabihiisii iyo gurigu galay iyo ilaa meeshuu deganaa waan gacanta ku soo dhignay waxaan ku helay go'aas gadaashiina ka muuqdo waa go'i uu xalay huwaday wala soo helay meeshii baa laga soo helay inuu isagii yahay iyo in kale waa isagii bay dhaheen laakiin waa ilmo yar ilaahay ha u kaalmeeyo dambiguu galayna Ilaahay baa ka jaasa marinaya kabihii uu watay oo tuuray raadkii badnaa oo iska daba wareegay gurigii hooyadiisa oo galay markuu ka baxay meesha gabadha uu ku kufsaday raadkii aan ka qaadnay guriga hooyadiisa galay saa u daba joognay dusha kor aaday ilaa adigu ilaa markii dambe ilaahay maadiis waxa kusoo guulaysan inaan qabano magaalada dhexdeeda laga soo masha Allah waayo waxaan tirina waxaan raadiyaha TV qaranka caabudo walaalahayga waxaan rabaa inaan inii sheego maalin kasta gabar Soomaaliyeed la kufsanayaa mid baa intuu kufsaday xabad ku dhufanaya
mid baa intuu kuftay ceeshinaya mid baa intuu kufsado iyadoo qaylinayso oo dhahaysa walaalow hay duubin ama hay kufsanin buu fiidiyoyo iyo wax qurna ka soo duubaya marka aniga ray ahaantayda anigoo gabar Soomaaliyeed ah haddii maskaxdayda waxa ka guuxaysa aniga wiil waan dhalay uuna ila dhashay uuna dhalay rag Soomaaliyeedna waa ragii gabdhaha ku faani jiray waay laakiin hadda ragga jira maaha ragga gabdhaha ku faana waa ragga gabdhaha qaybto yaan isku wada darin waa ragga gabdhaha oohintooda ku farxa waa ragga markay gabadhu ooyeyso ama gabadhu dhibaataysan tahay dhoosha dambe ka qosla qaybto marka waxa waaye waxaan u sheegayaa haddii gabdhaha Soomaaliyeed ay maqlayaan aniga inay intay wada istaagaan oo wada mudaharaadaan oo wada kacaan ila dhamaanayo mid waayeela la dhaafi maayo mid 10 jira la dhaafi maayo mid 5 jira la dhaafi maayo mid bila jirta la dhaafi maayo intay wada kufsadaan bay qaybna duubayaan qaybna way gowracayaan marka ninkii gabar kufsadaba aniga waxay tahay ideyadaasna waxaan soo dad badan u sheegay markii Caysheer la kufsaday oo la dilay oo ilkihii laga soo guray oo indhihii laga tuuray 10 jir oo nin 40 sano jiro waxaas ay ku sameynayeen nin walba oo gabar kufsada dhimashadu waa xaq qofna adduunkan joogi maayo nin walba oo gabar kufsada gabadha dambu u kufsaday naftiisa ayaa la aaday iyo hamigiisa war alaabta uu gabadha u kufsadayba oo hamigan keentayba ha laga jaro buuriyada ha laga jaro labada xiniyood meesha ku reeba ha lagu reebo wiil walba gabar kufsada hadii buuriyada laga jaro wiil dame lama nin dame gabar ma aadayo because nin walba alaabtiisu u baqaya laakiin hadii la dilo xaybo u dhintay xabad baa lagu dhuftay aniga waxaan ogaa barigaan yaraa gabar uu nin damcay inuu kufsado isagu markuu rabo inuu kufsado ee xiniyaha ku dhigtay uu midi laba ugu kala gooyay way dhimatay only magteedii baa la qaatay tan iyo maalinta ilaa hadda gabar baa laba loo kala gooynaa konton ley way kontonkeeda hadii la rabo haafa laga tagaa ragga Soomaaliyeed iyaga isku hiiliya nin hadii la dilo boqolkiisa la bixina ama waa loo dilaa beela isku go'aya waay gabdhaha wax looga qaban laaya nin walba oo gabar kufsada aniga waxa waaye ideyadayda in laga jaro meeshu gabadha la aaday nin dambe gabar ma hameysanayo nin walba naftiisu u baqaya nin aan alaabtaas ku oolina nin ma aha hadii la dilo xayba loo dilay nin walba oo gabar kufsada ha laga jiro geedka taasana misanahay waana murugeysanahay xanuunkay dareentay ayaan dareemayaa korkayga wuu tiro dhacoonaya jiraaca korkayga ku jabas because waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed waxaan ahay gabar Soomaaliyeed gabar baan dhalay maalin kasta gabdhaha yaryar oo walaalahaya oo wadanka Soomaaliya jooga mar walba waxaan kula taliyaa banaanka ha isugu bixinina because dhimashadu waa xaq laakiin xanuunkay gabdhaha Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed dhadhansiyaan waa xanuun tiro badan laakiin wiilka anaga xambaarnay anaga dhalay laakiin wiilashayadii adoo muqaadiraad la siiyay ma garanayo way isbedeleen ilaahay ha ka jaasa mariyo intaas aan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh